دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة مات أبي فقولي للأنفس الرحيمة يا دمعة اليتيمة يا دمعة اليتيمة مات أبي فمن لي يلقي الحنان حولي مات أبي أنا مدعيgu yahay Mustafa Abdalla Adam kana wakiil ah walaalaha gurmad Soomaali waxaan maanta joognaa madrasad Imam Shaafici hoose dhexe sare ee Boosaaso halkaasoo uu maantay ku soo gabagaboobay waxbarashadii sanad dugsiyeedkii 2018-2019 arday kamida ardadii ay kafaala qaaday jamciyadda gurmad Soomaali oo 15 kamida ardadii guud ahaan Soomaaliya laga kafaala qaaday iyo waalidkooda ayaan maanta halkan u fadhinaa inaan soo gabagabayno waxbarashadii sanad dugsiyeedkii 2018-2019 marka hore Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh inuu waafajiyay hawshan khayrka ah thumma waxaan u mahad celinaynaa walaalaha gurmad Soomaali oo gartay iyagoo ka maqan wadanka in ay wadankii wax ku soo celiyaan ilmihii agoonta ahaa ee aabahood dhintay anoo marka ku hadlaya magaca jamciyadda gurmad Soomaali waxaan leeyahay hawshi sanadkan Ilaahay baa inoo dhameeyay Ilaahay baana ku mahadsan thumma intii wax la baxday ee caruurta halka fadhida ee 15 ah oo isugu jira koowaad xadaana ilaa iyo lixaad isugu jira halka fadhida insha Allah ta'ala in sanad dugsiyeedkii u dhamaaday oo sanadka dambena ay sugayaan insha Allah ta'ala Ilaahay fadligiisa thumma jamciyadu ay u fadhido in ay u sii wadaan aan rajeynayno in hawshan wadi doonaan insha Allah ta'ala alhamdulillah awalan ilaah baa mahadle oo inoo suura geliyay inuu kulankan aan inoo qabsoomo kadib waxaan u mahad celinayaa Gurmad Somali Relief oo ah ururka ama organization ka ardaydan ka taageera school fee runtii arrintaas fursad muhiim ah bay ahayd waxay sabab u noqdeen in 15 kan arday sanadkan heleen waxbarashadii asaasiga ahayd ka iskuul ahaan anagu waa ka qayb qaadanay oo fiiga waxa weey iskuulku qayb isagu bixiya qayb yaani waxa ku daraa oo ka qayb qaadanay diyaar baan u nahay inta in ka badan inaan ka sii qayb qaadano waxaan soo jeedin lahayn ardaydu waxay u baahan yihiin adeegyo dheeraad ah oo la xiriira waxbarashada haday noqoto uniform haday noqoto buugaag haday noqoto qalabka kale waxbarashada iyadana waxaan soo jeedinaynaa qolyaha Gurmad Somali Relief in haday suurtagal tahay arrinta ardayda laga taageero magacayga Caasha Sawantar baa la yiraahdaa awalha ilaahay baa mahad iskala u mahad celinayna mahad ilaah baa iskala u mahad celinayna walaalaha iyo Gurmad Soomaali waa u mahad celinayna wadaadada iyo iskoolka meesha ilaahay inoo dhigan waa u mahad celinayna bismillaah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحان سلام يا مسلمين مeel kasta ku kala sugan yihiin rabbi subhanahu wa ta'ala ma hadle marka koobaad marka labaad walaalaha Gurmad Soomaali waanu mahad celinaynaa waxay noo la qabteen ciyaalkaas agoonta oo maxay ahaydey aanu iskala daala dhacaynay nala qabteen hawshooda وينقى قابلين ربي سبحانه وتعالى wax khayr qaba ha siiyo waxa kale oo mahad leh iskuulka Imam Shaafici iyo macallimiinta iyo dadka maartay maamulayaasha dhamaantood waxa weeyaan waan u mahad celinaa hawl bay naga furteen kurbada aakhiriyada adduunka bay Ilaahay ka faydo Rabbi subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan waxaan aniga magacayga waa Samsam Ahmed Maxamed baa la dhahaa waxaan kamid ahay waalidiinta ciyaalka agoonta ah laga qaabilay wax looga qabanayo marka waan u mahad celinaynaa muslimiinta walaalahana maxay ahayd hawsha naga la qayb qaatay noo qaabilay
waxaanuna maxay hayday waxaanu ku rajo weynaa inay nala dhamaystiri doonaan insha Allah ay nala qaban doonaan oo ay ardayda sanadkan si fiican bay meel fiican malka fiican bay soo gaarsiiyeen insha Allah way noo dhamaystiri doonaan anaguna waan dadaalaynaa anaga iyo mahad